السلام عليكم ورحمة الله كسر دبادة كنال كيجو أني قلنا سريسديتين أصحابته وحرجنا هنا في عنتين waxaan idin tusinayaa saddex geed aniga isticmaalo marka madaxayga ku arko goosayga waxa kuwad idin tusinaa waxa waaye shaambadaniiti هذا الشو درس شامبديدا waaye oo isheeg agoolka loogu talagalay oo aad ku fiican ani ahaantayda maalin walba ma isticmaalo run ahaantay macnaha mar walba aan dhaqaatimaha ma isticmaalo maxaa yeelay aniga waxa leeyahay madaxa lafta aad oo sensitive u yahay marka waxa isticmaalaa shaambooyinka oo loogu talagalay madaxa qaleelka hadana sensitive ka midka agoolka loogu talagalay aniga waxa isticmaalaa mar u dhaaf macnaha shaambada ku dhaqaaya marka lamaad dhaqay madaxayga waxa isticmaalaya tan marka kale inta waa ka bedelaaya laba shaamba isku dhaafsada marka shaambada kale inta hadii aad jeceshiin waxyaabaha hadda madaxayga anigu isticmaalo isoo sheega markaas inta waxaan tusinayaa alaabta complete oo timhiga iyo lafta madaxayga aan isticmaalo marka shaambadaniinta waxa waaye shaambooyinka aydin kula talinayo hadii madaxiina agool oo leeyahay sheeg labaad aydin tusinay waxa waaye raacsiinta maxaa yeelay marka shaambada ku dhaqdo waxa u baahan tahay wax lagu raacsiyo timahaaga oo sheeg agoolka ka dhameynayo waxa idin tusinayaa shay aad iyo aad gurigeena looga helo waxa waaye liin dhanaanta waxa isticmaalaa aniga hal liin weyn ama laba yar yar waa miiraya hal litir biyo garaafo ku shubaya liinta ku daraya qabo biyaha iko noo kuleel qabo iko biyaha waxa ku daraysaa biyaha liinta ka bacdi marka shaambada ku dhaqdo oo maaskaha ku dhaqdo timahaaga oo raacsiiso liinta biyaha leh aad ku raacsinaysaa waxa sugaysaa 10 daqiiqo camal ka bacdi biyo nadiif ah ku raacsinaysaa oo mar walba qabo maxaa yeelay madaxaaga hadii oo agool oo leeyahay agoolka hadii yani madaxaaga oo leeyahay oo biyo kuleel ah ku dhaqdo agoolku kugu sii badanaya marka hadii madaxaaga agool oo leeyahay biyaha qabowga saaidka isticmaal maxaa yeelay hadda qabow baa la galaa anaga qabow waa noo bilowday laakiin biyaha oo waxa isticmaashaa qabowga ama kuleelka bambaanta macnaha qandiirka hadii yani jirkaaga yani qabowga ka cabsanaysid madaxa goonu dhaqo si yani biyo oo dhaxad ah u dhaqdo madaxaaga laakiin se ha u isticmaalin biyaha karkarka biyaha qabowgan hadii qabow la galabo waxa ka cabsanaysa inuu hergab ku galo laakiin aniga madaxayga gooniyo dhaqa raacsiinta ugu dambeysana waxa waa biyo qabow saaid shayga kale inta idin tusinayo oo saddexaad waxa waaye daawadan markii la cadeysto lagu luqluqdo waayo talyaaniga waxa ku caan collutorio marka shayga waxa soo qaadanaysa taatsada macnaha koobka kafeega maaragtay labadiisa oo geedani iyo waxa isku daraysaa mar walba hal litir oo biyo qabow marka shaambada ku dhaqdo waxa ku raacsinaysaa tan kabacdi waxa sugaysaa daqiiqada sugaysaa kabacdi hadana waa si raacsinaysaa liinti geedambo اسبوعي لبا مر إلا 3 مر على ربا إنا مدحاغا يعني ku raxsiiso waxa kale raba ina idin dhaho hadii agoolkiina oo naheenin agoolka oo yeshag mar dadka ku kaco oo naheen oo mar walba idin haayo oo saaidka wax kugu la tali lahaa ina dhaqtarkaaga aado wixii ku fiican asiga ku siinaayo alaabaha neetin wax natural ma ahin wax daawo boqolkiiba boqol agoolka oo yani mar qofka ku kaco oo kasiyoonaalaha oo ka caawinaya marka waxaan rajaynayaa fiidiyogan inaad ka heli doontiin kanalkayga hadii aan ku qornayn iska qor comment ii dhaaf fiidiyogan like iyo wadaaf insha Allah taala waxa jeceshay inay weydiisatay soo weydii meel walba oo igala xiriiri kartaan hoos ay sheeg yani ku soo qoraya insha Allah taala qeyr caafimaad isku qnaa waa inuu fiidiyoga dambe nabadgelyo